dhammaantiin saaxiib yar aad baa idin salaam maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo afarta suuq ee adduunka la maalgashto sidaba haddii aad rabto inaad wax maalgashatid kaliya afartan suuq baa la maalgashtaa number 1 waa bondska number 2 waa stock marketka saddexna waa cryptocurrency afarna waa forex marka waxaan rabaa afarta inaan muuqaalkan isku taxliilino oo mid kastana aan sheego faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay qaar baxta xaraam ah oo la rabo adigana waxa inaad ogaatid marka afartana ugu waaweyn almost aniga laba kamid ah dadka waxaan ahay saaxiib yar maalgashto sida cryptocurrency stock market طبعا maalgashiga xaaladaha ugu muhiimsan waxa way dadka tujaarta ay ku taajiraan way ama waa sirta dadka taajiriinta wealthiga dadka noqdo waxay dadka dheerihiin markii saving laga soo tago waxbay maalgashtaan investment bay sameeyaan investmentiga si waxa laga yaabaa waqti kooban inuu lacag badan aad weliga shaqeyn karin inuu hal mar kuugu dhalo aniga buug badan baa ka akhriyay buug la The Richest Man in Babylon baa kamid ah xaalado xoog waxa kamid ah investmentiga way marka savingka investmentiga way kala duwan yihiin marka afartan suuq qaar baa wadankeeni adoo joogta waa maalgashan kartaa marka waxaan rabaa in aan mid kasta ku sharaxo waxa ku fiican yahay oo ku xun yahay wax looga faa'iidi karaa xalaal miya mise waa xaraan saaxiibyaalkan koowaad waxa la bonds ama waxa la dhahaa debt securities diin af Soomaali kan waxa weeye suuqa deymaha muxuu yahay bonds see uu shaqeeyaa waa suuqyada ugu horeeya adduunka lagu bilaabay maalgashi iyo historical investment weeye suuqan saaxiibyaal deyn ama loan baa waxa ka soo qaadanaysa dawladda kadib baad maalgashanaysaa diinta islaamka markaan article badan ka akhriyay ama la isku waafaqsan yahay suuqan waa xaraam wuxuu xaraam ku yahay bondskan waxa saaran interest marka kan ha maalgashan waxaan kugu sheegay laakiin inuu yahay suuqa ugu horeeyay waxa way maalgashiga dunida lagu bilaabay marka saaxiibayaal bondskaasi deyn baa ka soo qaadanaysa dawladda xitaa kaliya ahna maamul goboleedyada kale xitaa degmooyinka ama taqaana municipalities waxa dhahan deymaha saaxiibayaal way bixiyaan deyn baa soo qaadanaysa waa maalgashanaysa marka maalgashid halkaas waxa ka heleysa faa'iido suuqa marka muxuu suuqyada kale uga duwan yahay ansawda suuqan saaxiibayaal wuxuu suuqyada kale uga duwan yahay waxa weeye waxa loo consider garayaa low risk investment isaga khatartiisa aad u yaryahay marka la fiiriyo fluctuationka suuqyada kale hadda aan idin soo waday weeye ayada labaad idad ku qoon saaxiib waxa weeye fixed income stream buu leeyahay waxa ku soo galayo hal mar baa lagu sheegay waa wax la yaqaan weeye suuqan saaxiib yaal halka disadvantage uu leeyahayna waxa kamid ah waa lower return over the long term weeye macnaha inaan lacag heshid waqti badan ku qaadansayo ritaanka ay helaysa long term runtii aad buu marka loo fiiriyo stock marketka marka bond hadda waa isla fahanay basically waa lacag xaraam ah waana waxa weeye qofkii investmentiga sameeyay kulma talin 100% hadii aad ku jirtid waa inaad iska daysaa oo markasta wax maalgashanaysid inaad muuqaalo badan ama article ama culamo badan aad ka dhigaysaa si aad ogaato suuqada marka bondska suuqa deymaha la dhahaa ama debt security waa suuq qaabka u shaqeeyo kana labaad saaxiib waxa la forex dabcan anaga Soomaalihan forex aad baa u naqaana waa largest financial market in the world dunida financial market ugu weyn waa forex weeye saaxiib yaal suuqan waa ka wada dhareegsanahay waa la taradgarayaa lacagaha la isku bedelaa waa suuq shaqeeyo 24 hours a day in a 5 days a week shan bari uu shaqeeyaa suuqan labada bari weekend-ga ma shaqeeyo waa suuq total xiran oo lama taradgareyn karo shanta bari uu shaqeeyana maalinkii oo dhan waa la shaqeystaayo 24 hour day dadku way ka taradgareyn karaan suuqyo badan baa jiro New York market London market wadamo badan baa jiro marka hadduu market ku dhaafata mid kale ka jiro kareen ka dhaaf suuqan saaxiibayaal forex waxa laga faa'iidaa exchange rate ka laga faa'iidaa oo laba lacagood baa la isku bedeliyaa currency-gana suuqa waa in noqdaan pairs weeye currency waa in pairs noqdaan oo mar kasta waa in laba lacagood aad isku sarriftid weeye sida kale euro iyo pound oo kale USD iyo waxa weeye yen oo kale hadii laba lacag markaas baa isku bedelaysaa fluctuation marka suuqa uu sameeyo exchange rate kaas baa faa'iido ka helaysaa oo waxa weeye sarifkaas baa lacag ka faa'iideysaa dabcan waa xirfad la bartay weeye qofka haduu sabarana suuqan khatar weeye waayo suuqan leverage-kiisa baa waxa weeye keeno khasaaraha iyo faa'iidada leverage-ka waa lacagta marka kugu jirto qaab ratio waa loo xisaabiyaa oo inta limit-ka aad qofka $1 maal gasto kale aan ku tirad garanayo qof waxa weeye 10 kun ku tirad garanayo isku leverage ma noqonayaan oo dhanka waxa mid kasta limit buu leeyahay sida qaab ratio baa loo xisaabiyaa ayaga saaxiibayaal suuqan forex faktarada saameeya waxa kamid ah waxa loo yaqaan economic indicators-ka aad bay u saameeyaan oo waxa weeye saadaalaha markaas dhaqaalaha la bixinayo kale qofka inuu news isha ku hayaa kale aad buu u saameeyaa waxa laga yaabaa adoo qorshe degsada oo rabo inaad buy gashid ama sale iska dhahdo waxa weeye lacagahan in oo news dul soo baxo ama update soo baxo kale in wax kasta si aku iska bedela marka qofka trade garanayo waa inuu isha marka economic indicators-ka aad buu u saameeyaa factor kale oo ugu suuqa saameeya saaxiib waxa loo yaqaan geopolitical events dhacdooyinka marka dhacaya mataqaana dunida dhanka waxa weeye siyaasadda
iyo dhaqaalaha uu saameeyay deegaanka kaga baxay COVID-19 kala runtii aad buu suuqan waxa uu saameeyay waxa kamid ah waxa dagaalka Ukraine oo kale US China relation ka dhaxayo kale aad buu asagan u marka geopolitically waa in qofku waxa uu saameeyay newska iyo update-ka oo isha ku haya weeye qodobka saddexaad ee weyn suuqan forex saameeyay saaxib yaal waxa loo yaqaan waa central bank policies weeye siyaasadaha markasta bangiyada ay soo dejin tusaale hada bangiga euro kale Germany ku yaalo kale kan waxa weeye Mareykanka central bankiisa kale dabcan lacagaha hadii ayaga control price stable bay ka dhigaan inflation ka waxas been control marka hadii bangiga policies uu soo fadhino kale suuqay saameyn badan baa ku dhacayo oo sidii la filiyay marka noqon ama doorkii baa qaaliyoobay ama hoos u dhacay ama eurodii baa qaaliyoobay dabcan saddexda qodob marka idin sheegay baa suuqa aad u saameeyo suuqa saddexaad saaxiib yar waxa weeye waa cryptocurrency dabcan aad baa runtii suuqan uga hadla cryptocurrency muuqaalo waxa weeye aad u tiro badan baa ka sameeyay waa suuq aan marka saaxiib yar sharaxaad badan aan ka baxay cryptocurrency saaxiib yar waa lacag digital ama waxa weeye virtual ah waa runtii mustaqbal weeye dadka inay maalgashtaan markaas aniga waan kula taliyaa dabcan asaga waxa weeye ku shaqeeya technology la dhaho blockchain saaxiib yar waxa weeye waa computer isku xirxiran oo kale oo qofka fraud iyo waxa weeye lacagtiisa laba in kaliya hadda bangiyada kale aniga marka isticmaalno technology cajiib oo tarashiga u dhaca beer to beer tarashiga mu dhaca beer to beer tarashiga waxa weeye wax bangiga idin ma dhaxay hadda aniga hadda lacag kiribta ku soo dirayo adiga wax noo dhaxaynay ma laakiin bangiga caadiga hadii aan lacag kugu soo diro bangiga isu dirtay bangiga baa noo dhaxaynayo oo intermediaries asaka labada middleman bangiga baa ka noqonaya dabcan dadka waxay kiribta u maalgashana waxa kamid ah waa beer to beer tarashigaas muxuu ka anfacay dabcan lacagta hadii bangiga kugu jirto dawladda waddanka aad degan lacagtada way xayir ka dhaay way freeze gareyn kartaa ama bangiga laftigiisa awood u leh inuu lacagtada ka xayiro for no reason sometimes laakiin kiribta marka ku jirtid oo lacagta kale bitcoin ku haysta waa decentralized weeye cid maamusho runtii ma lahan bangi ma jiro dawlad ma jirto hadii qof lacag u diraysidna waxa dhahan waa B2B transaction mid ahna qof idin dhaxaya mana that's why dadku u maalgashanayaan because waxa keenaysa technology oo ku shaqeeya waxa weeye blockchain web3 bay ku shaqeysaa la isku ma dhici karo oo transaction-ka kaliya block kasta uu record gareynaya every block uu record gareynaya wayna isku xiriirayeen chain waxa laga silsilado baa u dhaxay mid kasto iyo copy meel kasta waxa laga yeeray transaction-ka copygiisa ee lacagta ku jirto saaxiib yar koonka ugu caansan waxa la bitcoin 2008 la sameeyay nin Japanese baa runta soo saaray 2009 ka bilaab dadka u horeeyay suuqan saaxiib inay maal gashtaan dabcan waxa weeye bitcoin haddan wuxuu maray lacag ku $7,000 dad waxa jirta markuu $1,000 mariyo markuu $2,000 mariyo maal gashtay qofka xilliga ama $100 gashtay ama 100 bitcoin gatay maanta waxa weeye almost millionaire weeye lacag badan buu haystaa marka dabcan hadda anaga bitcoin ma gadan karnaa ama waa qaali qofka xataa xogaa garanaya lacag badan ku goolmaysa laakiin coin kala jiro cryptocurrency thousands weeye kuwa kala jiro oo la filiyo sida bitcoin oo kale inay soo kacaan hadda ethereum kala waa coin kala baad weeye asna waa coin decentralized weeye sida waxa weeye bitcoin kale zalona jiro coin badan baa ama kuwa xataa waxa tir sentiyaal ah meme coins ku wada baa jiro inta ayaga la isticmaalo suuqan saaxiib marka crypto xalaal iyo xaraam uu isku jiraa coinka amal gashanida mashruuciisa bay ku xiran tahay dabcan crypto qaarna waa decentralized qaarna waa centralized ana kooda coinka qaarna cidna ma lahan coinka centralized dad baa iskala shirkado caadiga baa coin iskala shirkada marka mashruuceeda haduu yahay mashruuc xaraan ah diin islaamka aan ogolan sida shirkadaha khamriga oo kale waxay ku leeyihiin coin drugska coin kule ethereum dadka iskala oo kale waa caadi waa coin xalaal bitcoin oo kale waa coin xalaal marka tabtaas oo kale way marka coinka amal gashanaysid waa ina marba iska ilaalisaa niman waxa jira mataqaana karta muslim xalaal oo waxa way ka fadwoodaan carabiga bay degan oo coin kasta way yeeshay mashruuciisa inuu xalaal iyo xaraam laakiin majority coinka waa xalaal asaga laftiisa waxa loo qaybay spot iyo future waa loo qaybay marka waxaan kula taliyaa hadii aad ka trade garanaysaan ama mataqaana maal gashanaysan ma qaybta sportka isticmaal sportka markasta waxa sida forex dheeyna mataqaana way yaqaan future asaga xaraam internet badan baa saaran marka wiliga isku daynaysay suuqeena u dambeeya saaxiib yeel waxa la stock market sidoo kale waxa loo yaqaan equity market suuqan saaxiib waxa weeye saami baa waxa ku dirsanaysa shirkadaha hadda Soomaaliya kala soo arag shirkadaha waaweyn waxa ku leeyihiin Amal Bank iyo kale Trump Bank iyo kale Prime Bank waxa laga in leeyihiin investment policy oo ah qofka inuu lacag u dhigan karo share loo soo celin karo sidoo kale way shirkadaha Amazon Apple oo kale Microsoft Tesla Coca-Cola shirkadaha soo dhan baa saami ku darsanaysa lacag baa ku darsanaysa dividends waxna baa la helaan dividends waxa weeye way faa'iido ku soo go'ayso marka dividends waxa ku xiran shirkada policy-geeda waa in akhrisaa inta maalka shirkada dividends iyo policy-geeda receiving dividends waa in akhrisaa waxa weeye qaabka lacagta ku soo celiyo qaar baa 6 bilood ku soo celiyo qaar baa quarter-ka ku soo celiyo qaar baa annually receiving dividends iskale oo ah sanadkii mar baa faa'iido lagu soo celiyo marka suuqan laba qaab baa lacagta looga helaa marka waa kaas dividends-ka oo qasabta qofka inuu sanadkii lacag ka helo
lacag kala marka shirkadahan way bixiyaan saamiyada shirkado kale ay si xoog u korto oo lacag loo badqala capital appreciation bay helaan oo waxa weeye hadii shirkado kale xoog u faa'iido kale hal mar marka xataa dividendka adoo helayo saamiga helayo hadana lacag kale appreciation ma suuqan saaxiib yaal waxyaalaha various factors taamaya waxa kamid ah company earningka kada lacagta soo galata way saamaysaa shirkada faa'iido ay sameynayso profitska way saameyn ka dhacay markaas waxa laga yaabaa inay suuqa qiimaha kor u kaco marka faa'iido badan ay ku dhashay economic indicators kana sida kii hore kale wuu saameeyaa markaas dhaqaalaha qaabku u socdana wuu saameeyaa qodobka ugu dambeeya saameeya waxa investor sentiment waxa la dhaho ama attentionka dadka maal gashto kale dadka big boys ka marka kamiriga maal waxaan soo bitcoin loo Tesla waa taqaan Elon Musk ninka iskale ba shirkada Tesla ahaan magaca Tesla ahaan wuxuu ku maal gashtay bitcoin lacag badan uu ku maal gashtay tata marka lacag bay kala baxday marka dadka lacagta dad dhan baa baqayo waaye ninka caanka oo lacagta kala baxay koonka uu dhacay fiir baa inuu baqdi badan baatay dad badan markii yar lacag kala baxay marka tan waxa weeye investor sentiment-ga waa attention-ka dadka maal gashtay weeye oo hadii shirkada lacag badan laga baxo saamigii lees qof iska iibsamiso cash-kiisa oo la soo baxo waxyaalaha factors-ka waaweyn oo saameeya weeye shirkadaas ku maaragtay ama guud ahaan stock market marka kan hadii aan barbardhigo crypto iyo bonds-ka hadii horta aan crypto aan kan barbardhigo xagga volatility-ga suuqan uu ka yahay waa la volatile way marka loo fiiriyo crypto fluctuation-kiisa uu ka speed badan yahay kan laakiin kan waa stock iska tartiib weeye xoog ma ahan volatile-kiisa hadii aan barbardhigno saaxiib suuqa bondiga ama suuqa deynahana over long term-ka lacagta faa'iidada ah ka helis stock baa ka fiican oo hadda suuqa deymaan kasto xaraam yahay lacagaha aad kalisida marka hore aan ku sheegnay aad bay u yartahay oo marka long term labadan suuqba bondiga stock market waa long term baa faa'iido laga helaa istaan badan oo ku dhan hada shirkadda Tesla I don't know marbu shirkada hawada galad waxa jira 100 gaari marba sii weeye magan ugu dambeyn saaxiib waxaan jeedaa marka hadda inay isla fahanna saddexda suuq oo waxa way dadku maal kastaan bondiska iska daa suuqa deymaan la 100% waa xaraan waa la isku raacsan yahay forex waa suuqa laga trade gareeyo oo qofkii barta xirfad ahaan u barta runtii uu ka trade gareyn kara computerka u baahan tahay waa baranaysaa cryptocurrency saa idin sheegay waa la maal gashtaa investment buu leeyahay investment wax shaqo uma baahna coin ba ibsinaysa magaalada galaysa wax shaqo uma baahna laakiin crypto laftigiisa trading buu leeyahay waa la trade gareeyo sida forex loo trade gareeyo asna loo trade gareeyo lacagaha baa la crypto baa la kala wadaaga markaas exchange rate ka faa'iidadaas baa laga helaa saas baa looga faa'iida cryptoasna masala saaxib yaal suuqiisa mustad xalaal weeye qayb coinka maalgashanaysa oo iska fiirinaysa dadna waxa way magaalada suuqa stock dabcan asna shirkadda maalgashanaysa shirkadda xalaal inay noqoto weeye